kalfadhigii 16aad ee dalada dhalinyarada Soomaaliya ee Somaliland ayaa maanta lagu qabtay hotel Haldor ee magaalada Boorama waxaana uu socon doonaa muddo 2 maalmood oo lagu falanqeyn doono waxqabadka dalada dhalinyarada Soomaaliya ee Somaliland iyo qorshaha waxqabadka gudoomiyaha dalada Soomaaliya Mubaarak Ismaaciil Taani iyo gudoomiye ku-xigeenka dalada Mustafa Sheekh Maxamuud Daahir Dawal ayaa ka waramay waxa kalfadhigan laga wada hadli doonaa hawlo badan oo khuseeya horumarka dhalinyarada Jamhuuriyadda Somaliland baahida maanta jirta iyo duruufaha ku gadaaman iyo qorshihii laga yeelan lahaa dhalinyaro qaran ahaan iyo qaran ahaanba waxaan salaam u dirayaa dhammaan dhalinyarada Jamhuuriyadda Somaliland oo dhan meel ay joogaanba waxaan sidoo kale dalada dhalinyarada heer qaran Soomaaliya ay tacsiib ballaaran u diraysaa dhammaan qoysaska reer Somaliland ee ubadkoodii qaaliga ahaa ku waayay masiibada heer qaran ee tahriibka ee dhalinyarteena haysata oo runtii noqday masiibo qaran oo qarankeenu muddo badan la soo dhutiyay u baahanahay in xal qaran ka gaadhno taasoo noqotay mid galaafata da'yar badan oo reer Somaliland runtii waa farxad aad u wanaagsan waa mid iyadana sumcad iyo sharaf u ah dalada Soomaaliya waxaan rajaynayaa insha Allah shirkan in qodobo badan oo midadal ah oo guud ahaan shacabka Somaliland wax tar u yeesha gaar ahaan dhalinyarada Somaliland inay ka soo baxaan hadii la yiraahdo barasaabka gobolka Awdal Cabdo Axmed Ayir iyo maayarka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadi ayaa kula dardaarmay dhalinyarada in looga baahan yahay sidii dawladda ay ula shaqeyn lahaayeen hawsha ugu weyn ee soo jeedinaya golaha maanta jooga aan soo jeedinayana waxa weeye in wax qabadka kala odhan iska dhiga in focus ka saaraan sidii shaqo abuur loo sameyn lahaa ee dhalinyarta looga jeedin lahaa tahriibta ee wadankooda looga hakin lahaa yaan dariiqa laynaga lumin ee ka toosan idinka inagu hayn kare nagu haye idinka ku wacin kara dawladda idinka ku wacin kara ku hayn kara axsaabta qaranka idinka ku hayn kara kuwa magacyada kala sheegta runtii intaba cidda jawaabta cad siin karta ee awoodda dhabta ali waa dhalinyaradu markaa waa in ay kaalintooda aad u bareedaan waad ku hogaamisaan dhalinyarada si aad dariiqa toosan ay u wada qaadi lahayd wahadan caafi TV-ga qaranka magaalada Boorama.